wax u qabashada iyo caawinta shacabkaaga waa mid ka mid ah sababaha wax loo barto ee loo qaatay qalinka iyo buugga. ardayda caafimaadka ka barata jaamacadda Plasma faraceeda magaalada Kismaayo iyo maamulka jaamacadda oo ka duulaya caawinta shacabkooda ayaa adeegyo caafimaad ka sameeyay deegaano dhowr ah oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo. deegaanada Goobweyn, Qaamqaam, Istanbul, Buula Bartire iyo Yoontoy oo ka mid ah deegaanada dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Kismaayo isla markaana ay ku yar yihiin adeegyada caafimaadka ayaa ardayda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Plasma waxay u sameeyeen adeegyo caafimaad oo isugu jira baaritaano, daweyn iyo wacyigelin guud. qaar ka mid ah ardayda jaamacadda ayaa wacyigelin u sameeyay shacabka deegaanadaasi waxayna kala taliyeen sidii looga hortagi lahaa cudurrada. cudurka shumbiyoodka sababaha keena waa biyaha wasaqooba. biyaha intaad caban ka hor iska karkari markii qabowaan oo kala degaan waa ina ilmaha adiga baa isticmaashaan. cunugga marka ugu horeysa oo u dhasho waxaa la rabaa naaska afka in loo geliyo hal saac kadib oo naaska in lagu bilaabo. hooyadii imaamooyin qaar waxay ku leeyihiin cunugga naaska lama siinayo, caanaha dambarta way u diidayeen. saddexda biri ugu horeysa waxaa lagu leeyahay lama siinayo caanaha dambarta, cunuggu ku shumaya oo iga xanuunsanaya. marka waxaasay talooma baahno. waxa aniga ugu badan aan u socono waa waxyaabahaas inaan ka hadalno. odayaasha dhaqanka deegaanada laga sameeyay adeegyada caafimaadka ayaa maamulka jaamacadda Plasma uga mahadceliyay howlaha samafalka ay u qabteen bulshadooda. waxaan marka hore mahad ballaaran u soo jeedinaynaa wasaaradda caafimaadka iyo jaamacadda Plasma. mahad ballaaran baan u soo jeedinaynaa haddaanu nahay maamulkii iyo mas'uuliyiintii Istanbul City iyo dhammaanba maxay tuulooyinka ku hareeraysan sida Qaamqaam oo kale, Buula Bartire oo kale. waxaanu muxuu ahaa aad iyo aad mahad ballaaran u soo jeedinaynaa. Dr. Maxamed Bashiir Nuur iyo Bashiir Maxamed Ibraahim gudoomiyaha midowga ardayda jaamacadda Plasma oo la hadlay Jubbaland TV ayaa sheegay in iskooda isku soo xilqaameen sidii ay bulshadooda wax ugu qaban lahaayeen. waxaynu ka qabanay barnaamij outreach ama caafimaad ah iyo barnaamij wacyigelin isugu jiro. barnaamijkaas ay soo agaasimeen maamulka iyo ardayda jaamacadda Plasma qaybteeda magaalada Kismaayo ama xarunteeda magaalada Kismaayo. barnaamijkaas ayaa waxaa ka faa'iideystay bulsho badan oo ku dhaqan deegaanada aan hore u soo xusay sida deegaanada New Goobweyn, Istanbul, Qaamqaam iyo Buula Bartire ilaa iyo Bulgudud ilaa Yoontoy. waxaana loo adeegay bulsho ka badan 500 oo qoys ka badan. waxaana la fulinay adeegyada waxay isugu jireen adeegyo daaweyn ah oo dadkaas bulshadaas ku dhaqan tuulooyinkaas aan ka soo hadlay in la daaweeyo xanuunada iyo waxyaalaha ay ka cabanaan iyo adeegyo isugu jira baaritaano loo sameeyo dadkaas. halkan la yimid politiga iyo wax walba oo consultation ah oo soo gelinayay iyaguna aad baan ugu mahadcelinaynaa wasiirka iyo iskuduwaha gobolka iyo dhammaan inta kale ee naga qayb qaadatayba. Engineer Maxamed Cabdi Jimcaale maamulaha jaamacadda Plasma faraceeda magaalada Kismaayo ayaa sheegay inay sii wadi doonaan wax u qabashada bulshadooda. haddaan nahay baada jaamacadda Plasma guud ahaan ardayda jaamacadda Plasma iyo takhaatiirteeda iyo macallimiinteeda waa sharaf aad u weyn oo ah inaan maanta aan barnaamij caafimaad aan ka sameeynay u qabanayna bulshada mutaqana kala duwan oo ku nool deegaanada sidaan Istanbul mutaqana tuulooyin badan aan barnaamij caafimaad ka sameeynay. dabcan barnaamijka sameeynay wuxuu ahaa wuxuu isku jiray 3 qaybood. qaybta koowaad oo ahayd inaan sameeyno wacyigelin guud oo aan u sameeynay bulshada ku nool deegaanada meeshaas. barnaamijka labaad aan sameeynay wuxuu ahaa barnaamij la medication oo ahayd in dadka loo sameeyo daaweyn caafimaad loo sameeyo la bixiyo oo dadka la baaro mutaqana xanuunada iyo wixii jira markaas laga ogaado ka bacdina loo qoray medication ama daaweyn la siinayay. madaxa caafimaadka degmada Kismaayo ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland Maxamed Sheekh Aadan ayaa jaamacadda Plasma ku amaanay sida ay u garab taagan tahay dadka ku nool deegaanada laga sameeyay baaritaanada daaweynta iyo wacyigelinta. waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda Plasma qaybta Webi Jubba ee faraceeda Kismaayo yaa u
mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa tiimka barayaasha jaamacadda balaasma xasan yuusuf maxamed shafadyare raadiyaha iyo TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland magaalada Kismaayo.